runtii sida la wada cabiray caawa waa habeen Puntland taariikhdeeda qayb ka mid ah waa habeen ka mid ah habeenadii faraha badnaa ee dadka reer Puntland ay ugu jireen dowlad dhiskooda laga soo bilaabo 98 ilaa iyo maanta oo runtii taariikh aad iyo aad u kala duwan oo kuwa farxadeed iyo kuwa murugalaba isugu jirtay la soo maray sida bini aadanka oo dhanba uu maro waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijino asaasayaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhawaan karo in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii ilaahay ka dhigo waan dareemi karnaa marxaladahaas ay dadka reer Puntland jeclaayeen oo xeerkoodii ugu horreeyay ama jaartarkooda hore ugu horreeyay ku dhigteen inuu hergeli waayay nacayb iyo doonis la'aan ma ahayn laakiin caqabado xaqiiqi ah oo dalka haystay ayaa mar walba dib u dhigayay ha ugu dhawaato dowladdii Cabdiraxmaan Faroole oo runtii gaartay meeshii ugu dambeeyay ee technical uu ku qabsoomi lahaa laakiin duruufo siyaasadeed iyo tuhun siyaasadeed sababtiis ugu qabsoomi waayay isagoo halka sheegay aan rabin inaan dib ugu noqdo iyo marxaladihii ka dambeeyay oo caqabado ay dhici karto kuwa inay ka duwanaadeen ay sabab u noqdeen ama la dhihi karaba siduu gudoomiyuhu hore sheegay doonis la'aan xilka markii aan qabtay aniga iyo saaxiibaday waxaan aad u daraasaynay dhibaatooyinkaas qabsaday dadka dareenkooda iyo doonistooda ah in doorasho qof iyo cod ay la helo oo mar walba dadka reer Puntland markay hadlaan uu hadalkooda ku jiri jiray oo mar walba ay daliili jireen in nidaamkaas lagu sii jiro sidii looga bixi lahaa dhaliishta ugu badan ay saari jireen madaxda dawladda iyo siyaasiyiinta marka xukunka haysta oo loo muujin jiray in iyagu daraf ka yihiin inaysan hirgelin annagoo taas wax ka baranayna dhaliilaha ugu badan oo lagu dhaliili jiray waxa ahayd in waqti aan kaafi ahayn dawladdu u igman jirtay guddiga inaysan garab istaag dhinaca dhaqaalaha ay kala baqayli jirtay inaysan madax bannaani siin jirin waxaas waa dareenka dadka inuu jiro iyo inay jirin waa wax kale waxaan ku dul dhisnay arrimahaas dareenkaas dadka inaan u rumayno inaan annagu u muujino inaan daacad ka nahay in hadafkoodii ahaa doorasho qof iyo cod ah iyo ka qaybgal talada siyaasadda oo loo dhan yahay inay la helo inaan qaadnay wax walba oo xukuumad ahaan waajib nagu ahaa ay ama suurayn gelin karay ama fududayn karay waxaa ugu muhiimsan inaan guddigii waqti habboon aan magacaabnay inaan intii karaankeenna ku dadaalnay annagoo waxyaabo badan xeerinayna inuu guddigaas u muuqdo guddi shaqadaas ku filan in muddadii yareed ay hadda joogeen iyaguna dareemeen dadkuna ay dareemi karaan inaan madax bannaani buuxda oo sida sharciga dastuurku dhigayo aan siinay inaan miisaaniyaddii iyagu ay u arkeen inay ku filan tahay oo annagoo weliba duruuf adag dhici karto inayna soo wajahdo laakiin niyad wanaag dartiis inaan u qaadanay intii ay ahaydba oo uu muujiyey guddoomiyuhu tii hore inay 800 jeer ka badan tahay sidaa ugu xisaabin maxaa yeelay iyaga soo qortay laakiin intaasba waxay tusaale u ahayd inay naga go'an tahay inay doorashadan dhacdo
sababtay nooga gacan tahayna waxa weeye waa doonistii dadka 98dii bay ku qorteen jaartarkoodii welina waa sugayaan marka waa xaq dastuuriya oo dadku reer Puntland leeyihiin ma aha in anagu jecelnahay ama nacabnahay xafiiska waxaan u joognaa waxa noola igmada inaan fulino oo ay ka mid tahay taas marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi hirgasho oo ay ku hirgasho waqtiga iyagu hadda ay qorteen iyo sida ay u qorsheeyeen oo runtii aan dhihi karo si aad u qurux badan oo maangal ah ayay ahayd iyadoo oo aysan ka marnayn inay caqabado imaan karaan laakiin waxaan rabaa caqabadahaas imaan kara in loo wada joogo waxaan kaloo runtii muddadaas dheer oo Puntland geed socodka soo waday oo dowlad dhiska soo waday saldhig u ahaa oo dhextaal u ahaa hoggaanka dhaqanka oo mar walba hirgeliyay in dowladda Puntland ay waarto oo jirto oo doorashooyinkooda si xor ah ay ku dhacaan oo mar walba turxaamaha jiray ay ka saari jirtay aan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii dhaqanka ee arrintaa ka soo qayb qaatay waxaan kaloo u mahad celinaynaa culimmada oo mar walba la garab taagnaan jirtay dadka reer Puntland inay midnimadooda iyo nabadgelyadooda iyo horumarkooda ilaaliyaan dhaqanka bulshada rayidka ah cid walba oo gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo haweenba isugu jira inay ilaashadeen dowladnimadooda iyo midnimadooda iyo horumarkooda waxaan rajaynayaa intii inay haddan u wada istaagaan in arrintaas runtii dadku marmar ay ka muujiyaan cabsi ah waayo dadka Soomaalidu waa dad xoogaa tartanka ku xun oo markay tartamaan aanan tanaasulka aqoon oo meesha u dambaysa taga ama khilaafaad iyo kala takeentaa dad badan oo cudurdaas qaba laakiin waxaan is rajaynayaa in arrintaas laga wada qayb qaato in laga gudbo oo isku tanaasulka iyo wax isku quurka iyo is ogolaanshaha in laga wada shaqeeyo annagoo og ciladaheena ayaan rajaynayaa waxa ay muuqanaysaa Puntland inay u sahlan tahay inay doorashadaas dhacdo marka la fiiriyo amniga ka jira marka la fiiriyo doonida dadka marka la fiiriyo imkaaniyaadka dawladeed ee aan hadda haysano intaasba waxay suuragal ka dhigi karaan in doorashadaasi ay dhacdo annagoo ka rajaynayna dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo beesha caalamka inaan gacan fiican ka heli doono intaa marka la isku kabto laakiin mar walba waxaa ka horeeya cidda wax ku taraysa inaad adigu qorshahaaga iyo doonistaada iyo sida aad ay u caddahay inaad si wanaagsan u soo bandhigtid waxaa runtii anna ku beerinayaa khabiirkii muddadii horena kala shaqaynaya Jerry inuu mar labaad joogo oo diyaar u yahay iyada naftirkeeda waa sifo fiican oo aan isleeyahay iyada naftirkeeda qayb bay ka qaadan doontaa in riyadan ay rumowdo dabcan dadka Soomaaliyeed waxaa la yiri de 50 sano doorasho ma gelin doorasho qof iyo cod ah ayay isgelin laakiin inta waa is dooran jiray doorashooyin ayaa iska dhici jiray siyaabo kala duwan u dhacdhaca marka conceptiga ama fikirka doorashada way fahamsan yihiin dhinac kale marka laga fiiriyo oo waa is doortaan oo hadda maalin walba waxaad aragtaan guddiga maxaa leedahay golayaasha deegaanada oo is dooranaya guddiyada ardayda jaamacadaha oo is dooranaysa ururada bulshada oo is dooranaya dhalinyarada oo is dooranaysa haweenku oo is dooranaya kaambeynadu waa badan yihiin aniga waxyaabaha ay dhiirigeliya waxaa ka mid markaan kaambeynka ku jiray magaalooyin badan oo Puntland aan tagay aad baan ula yaabay sida peacefulka aan kaambeynka uga sameynay dadku siday u soo baxayeen siday organized ku ahaayeen waxay muujinaysaa doorasho qof iyo cod inay dhici kartay haddii maaragtay lagu daro inta yar oo ka dhiman oo shuruucda iyo xeerarka ah si waxa soo baxa ay legitimacy u helaan maxaa yeelay waxa baqdinta laga qabo waa dhinaca legitimacy-ga marka si loo helo waxyaabihii agabkii ku habboonaa intaas waxaan ku biirinayaa anoo ku hadlaya magaca dawladda inay dawladdu ay ka go'an tahay waxa dadka ka go'an waa inay is doortaan annagu intaasaan ayidi doonaa wax walba oo karaankeenana waan geyn doonaa sida madaxweyne ku-xigeenku sheegay cabsi ma qabno
sidoo kale xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan arrintii ku dhacday suuqe oo kale nagu dhici mayso xisbigeena annagana waa furanayna haddii waa diyaar garoobeena waqti fiican baadna siisaan inta dowladda ah waa diyaar intiina kaleeta albaabada waa inii furay haddaan nagala qayb galaysaan marka tartanna waa u diyaar garoobeynaa inaan tartanno marka taasna waxaan rajaynayaa inay qayb ka qaadan doonto inay xukuumaddu ruuxadeeda iyo dowladdu ay dhiirigelin doonto nidaamka xisbiyada badan inay hirgelaan intaa markaan intaas aan kusoo uga gudbo oo runtii aan mar labaad tbeg ugu mahadcelinaya shaqada ay qabatay wasaaraddu arrimaha gudaha howlaha ay kala qabatay oo runtii u egmanayd dhinaca dimuqraadiyadda ilaa hadda inta la gaaray xukuumad ahaan waa ku qanacsanaa inay shaqo fiican qabsoontay inta dhimanna waa rajaynaynaa inay si habsami loo wanaagsan u qabsoon doonto wax yar haddaan halkaa uga baxo inta puntland dabcan dalka soomaaliya ergeyga wakiilka halka u fadhiya puntland unsom wuxuu sheegay inay sanadka 2021 doorashooyin heer federaal iyo kuwo dowladeedba ka dhici doonaan dabcan puntland markii horena hormuud bay u ahayd dowlad dhiska iyo guud ahaan puntland iyo soomaaliyaba haddana nidaamkan waxaan rajaynayaa inuu noqdo doorasho sax ah inay dhacdo hadda waxa ay noo sheegeen shuruudaha oo waqtiyeysan iyo xilliyada iyo sida ay wax noqonayaan iyo processka oo dhan xilli goor hore ah runtii iyada oo doorashadii federaalku hal sano ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin 2012 shirarkii garowe 1 iyo 2 iyo waxyaabihii socday waxaa aad loogu celcelin jiray in nidaamka 4.5 laga guuro dastuurkii markii si gumeel gaara loo ansixiyey 2016 waa la gaari waayey mar labaad garowe waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib dambe loogu soo noqonayn nidaamkaas hadda hal sano ka dhuwan tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa inaan ii sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhignay wax qayb waan ka nahay male mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed way waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay male maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiyo ama barbaaraysa kama muuqdo sanadka ugu dambaysa doorashaa la qabanaya 4.5 kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanaya siday isu geli karaan anigu weli aad uma fahmin haddii la leeyahay doorashaa la qabanaya 4.5 chapterkeeda waa inuu xirmaa haddii la leeyahay ma xirmi karo hadda anagu dad soomaali ka duwan manayno xaal dastuurka waa ogolnahay la isu yimaado bal hala wada hadlo marka xagee la aadaya waddo kale oo saddexaad aan ima muuqato haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigayo ee cad wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jira oo aad moodi saarar dad tolanaya dabcan dee puntland uma qalanto suuragalna kama aha waxa noocaas kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan inii sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed oo midnimo iyo cadaalad iyo federaal ku dhisan waxaan aad runtii madaxweyne faroole intaa maba ogeyn uu lahaa wixii halka ka jiray qolyaha xamar jooga dee qofka xukunka markaa hayo xog badan buu ogyahay nimankii xamar joogaa tuuryada halkaa wax ka waday haddee kursigaasaa malaha cilladda iskalo cilladii oo kale weli waa jirtaa oo hadda ruuxaddeenna dimuqraadiyeyntan iyo waxaan aan wadno waan ka baqayaa in maaragtay wax ku soo dhuudhuuntaan oo cid aanan u arkayn inay dhacdo diidan iyo waxyaabahaas iska dhici karaan
laakiin waxaan uga gudbaynaa dulqaad iyo sabir waxaan u caddaynayaa reer Puntland iyo Soomaaliba kursi jujub laguma helo sidiisaba cid kasta oo jecel inay tartan iyo doorasho ka qayb gasho Ilaah baa bixiya Rabbi ha ku kalsoonaadaan dadkooda si wanaagsan ha ugu soo bandhigaan inay u rabaan inay u shaqeeyaan oo kaliya hana u daayaan maaragtay awoodda inay ogolaadaan iyo inay diidaan laakiin kuwa isbadbadoobeynaayo oo askar iyo buuq iyo qaraxyo iyo hadda waxaa maqlaya nimanka xataa shabaabka waa contractor bay noqdaan waa kiraysan kartaa sidaas nabad ma aha halkaas laba bambo ku tuur ya waxyaabo noocaas xataa waa la sheegay marka cidii isku dayaysa inay khalkhal dad geliso ama amni darro abuurto ama ummadda deganaanshaheeda ay maaragtay khalkhal geliso ama aragti siyaasadeed oo aan meesha oolin ay soo export garayso waxaasoo dhan waqtiga bay dadka ka dilayaan mooyaane natiijo ma dhalayaan ma garata marka waxaan ku baraarujinayaa ama ku boorinayaa dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed in si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo oo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka dadka soo socda si niyad wanaagsan looga taliyo maxaa yeelay waa nagu filan tahay 30 sano sida aan u egnahay dawlad xumo deganaansho la'aan amni xumo adduunkii oo qadarin waayay hadda waxa laga lahaa waa la aamini waayay Soomaaliya inay dimuqraadiyad sameeyso beesha caalamka waa frustrated 3 sano waxa looga qaadanayaa lacag dimuqraadiyad baa sanadka u dambeeya wax leeyahay hirgeliyo hadda waa inii sheegay guddiyo eedaas ani ilama wadaagi doono waxa aydan qaban karin lacag ku qaadanin ku baa fiican waxa masaariicda qaadanaysan ha noqotaan waxa fulin doonto yeysan noqon inta dadka adduunka hadda waa la bartay PowerPoint iyo proposal fiican oo dadka lagu maartay shaxaado yeysan u ekaan waxaan qabaa waxa u gudbinaysaan ha noqotaan waxa xaqiiqo oo hadhow aad qaban doontaan oo sumcadna idinka inii soo jeedi doonta Puntland sumcad u soo jeedayso waa nasiib darro maaragtay in guddiyada qaybtood hadda guddiga doorashooyinka ee federal mararka qaarkood aan waxaan kala garan waayaa guddi madax bannaan inuu yahay iyo guddi dawladda ka tirsan inuu yahay shirarka caalamiga ka qayb galaa afka dawladdu ku hadlayo dawlad goboleedyadu dhaliilaa mararka qaarkood waxaa is leedahay ma fahmi kartid mararka qaar waxa leeyahay maxaa dimuqraadiyadda uga qayb qaadan weydeen hadda dimuqraadiyaddu xagee taallaa marka waxaan u baahannahay sidii halka laga sheegay xisbiye markii la furto oo sharciga la ilaaliyo dadka laba xiri doono runtiina nin baa daadi dadka la xiraayo wixii sharciga dhaafo waa la xiraaya laakiin ninkii sharciga ku socdo ninna xiri kari maayo maxaa awoodda sharciga ilaalinaysa marka waxaan rajaynayaa dad sharciga u hoggaansan baa Puntland dhaqan ahaan lagu yaqaanay aan u ekaano dad sharciga ilaaliya magaalooyinkii shalay diidanaayo qarnay bursaaraxna hadda ha sii diyaar garoobaan doorashada soo socota si aynu u diidin dowladahaas cabdiraxmaan isaga naftarkiisa waxaa lagu dhaliilayay waxba u qarsanaya loo arkaayo markaas orod baa ku jiray marka waa la isku dheganaa marka aan waxay ila tahay inaan ka gudubno tuhunka siyaasadeed aniga shakhsiyan waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland inaysan lahayn khiyaar kaleeto oo ah inay isdoortaan iyo wixii doorashadaas ku guuleysay inay ixtiraamaan oo kula shaqeeyaan wax ka duwan oo hadda ii muuqda ma jirto marka waxaan rajaynayaa in arrintaas ay noqoto mid sax ah oo noo horseeda deganaansho siyaasadeed iyo barwaaqo iyo inaan ummadeenna u shaqeyno aad baan ugu mahad celinayaa inta maanta ka soo qayb gashay hadallada quruxda badan ka soo jeedisay muujiyay dareenkooda ah inay diyaar u yihiin waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweyne cabdiraxmaan inuu weli u taagan yahay sixidda dowladda Puntland diyaar u yahay nidaamka xisbiyada oo runtii aan qirayo inuu waqti badan ku baxshay marka loo fiiriyo xukuumadihii soo maray inuu weli u diyaar u yahay inuu tartanka soo socdana ka qayb galo iyada naftarkeeda waxay noo muujinaysaa siyaasadda orahdii la oran jiray oo ahayd lagama daalo lagamana baxo marka
annagana waddadiisa waan haynaynaa waa ku wadaynaa haddii ilaahay waad mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.